gudoomiyaha hay'adda SADCO mudane Cabdifataax Mubaarak Maxamed ayaa qada sharaf iyo dhiirigelin ugu sameeyay beerta dhalinyarada maqalka leh ee hal abuurka leh iyo xubnaha midowga ardayda SEDSU. Ujeedada kulanka ayaa ahayd in lagu bogaadinayo dadaalka hal abuurka iyo horumarka ay sameeyeen dhalinyarada, isla markaana lagu dhiirigelinayo inay sii wadaan howlahooda bulshada iyo waxbarashada. Intii lagu guda jiray munaasabadda, gudoomiyuhu wuxuu la wadaagay dhalinyarada erayo dhiirigelin ah isagoo xusay sida SADCO ay uga go'an tahay taageerada iyo horumarinta awoodaha dhalinyarada maqalka leh si ay door muuqda uga qaataan dhismaha bulshada Soomaaliyeed. وداني دلكم يا ذي